kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walbo oo caalamka aad ka joogtaan iyo si walbo aad inoo daawanaysaan waxaan idin leeyahay jumco wanaagsan markale ku soo dhawaada channelkiina Sir iyo Caad wadku maadsan tahay la joogaaga ee fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato ama aad soo saan mariso waxaan laga codsan lahaa annaga oo isku duuban reer Sir iyo Caad kuna soo dhaweynayno subscribe saar channelka kambalelkana furo si aad mar walba u hesho filmaantii ugu dambeeyay ama muuqaaladii ugu dambeeyay oo aan soo dhigno haddaba maanta waxaan idin hayaa oo miiska inoo saaran oo aan faaqidi doonaa falanqayn dheerna ka bixin doonaa hees ugbaad aragsan oo run ahaantii hadal hayn badan ama saameyn badan ku dhax abuurtay baraha bulshada heestaas erayadeeda oo dhan ma ahan erayada ay dadka ay isku haystaan laakiin waa erayo ka mid ah inta aanan heesta idin gelin ka hor horta bal in yar oo falanqayna aan ka hormarino waana kadib marin doonaa insha Allah waxa jirto dadkii hore waxay ahaayeen abwaaniinta kuwa yar ayay ahaayeen oo run ahaantii aad bay u yaraayeen abwaaniinta waqtigaas jirtay taa darteed waxa dhici jirtay heesaha soo bixitaankooda in la isku raadiyo ilaa iyo hal album ay ka gaaraan albumka oo ka koobnaan karo 6 hees ilaa iyo 7 hees ama ilaa iyo 8 hees albumada qaar inta ay gaari karayeen 7 hees ama 6 hees abwaanka sameeyanayo waxa qasab ku ahayd in uu wada sameeyaa wuxuu raadin jiray in uu ka sameeyaa macna guud oo dadka anfac ku leh hadii ay noqon lahayd in ay jacayl ka hadlayso heesta iyo hadii ay noqon lahayd in ay ka hadlayso murti kale oo ay Soomaalida aad ugu baahan yihiin intaasi markay ay dhacdo kadib fanaanka markii uu diyaariyo abwaanka aan raadiyay abwaanka markii uu diyaariyo heesaha waxa uu sameyn jiray eray bixin ayuu sameyn jiray marka hore waxa la soo marin jiray isaga ayaa naftiisa ku laaban jiray oo heesaha uu diyaariyay mar labaad ayuu oo eegi jiray si hadii ay wax ugu jiraan oo waxa ku jiraan oo kaga saaro markii taa dhacda kadib wuxuu la kaashan jiray abwaaniin kale hadii uu yahay abwaan cusub wuxuu la kaashan jiray abwaaniin kale si ay iyagana u eegaan hadii ay jiraan wax turxaan ah oo heesta ay ku jirto ama waxyaabaha qaar oo aanan anshax ku wanaagsanayn waana sababtii in badan oo heesaha qaar oo dadkii hore ah looga weyn jiray in akhlaaq xumo ay ku jirto ama in ay ku jirto wax aanan macna lahayn eraya qaar way dhici jirtay in laga helo oo yaani tusaale ahaan in heesta markii la helo oo kale in laga helo heesta eray kamid ah oo macnaheeda aan la fahmi waayo laakiin hees macnaheeda inta la fahmo haddana murti ahaan aanan jirin wax yaani qiimo badan aan ku fadhin inay noqoto run ahaantii aad iskaga ilaalin jireen sumcad xumada abwaankaasna way saameyn jirtay laakiin maanta ma jirto qof bili aadam ah oo erayada noocaas uu eegto amaba iskaga fiiriso lama arko oo heesta ma hadli kartaa ha uu heesi kara fanaankaba ma aan fanaan diyaarsan amaba ha noqdo amaba iyo noqonin laakiin ma ahan wax in badan waqti ay geliyaan oo qofka isagoo fadhiya ayaa waxa leedahay waxaan rabaa inaad ii sameeysid hees aan hebel u qaadayo ama hees aan heblaayo aan u qaadayo oo wax kaga sheegayo ama wax kaga sameeynayo marka way sahlanaanaysaa qofka abwaanka uu qabanaya waxbuu isku keenayaa waa macno una laga raadinaya kadibna waxa leeyahay hebel u laxmi laxamka ayaa la saaraya wax laga maceeyo marka 90% heesaha waa maaragtay muusiga ayaa lagaga macaaniyaa Soomaalidana maanta inta ugu badan waxa arkaysa qof hees dhageysanaya markii aad su'aasho oo tiraado war heesta maxay macna ah oo ay sameynaysaa ama maxay saameyn ah oo yeelanaysaa wuxuu ku leeyahay anigu waxaanba kama dhageysanay waxa ka dhageysanay kaliya waa muusiga heesta saaran marka taasi iyaga ogaadeen ogaanshiyahaas ay ogaadeen ayaa waxa la sameynayaa in abwaanka oo in badan oo waqti uu iska gelin waayo ma garanaysaa okay hadda waxyaabaha aan rabo in aan ka hadla ayaa waxay tahay hees ay soo saartay fanaanada weyn ee ugbaad aragsan run ahaantii waa qof magac iyo maamuus ku dhaxle codkeedana waa 100% muuqaalka heesta run ahaantii ma laha wax ceeb iyo dhaliil ah oo lagu sheego intaasi oo dhan marka isku wada keenno waa run ahaantii heesta ahaan muuqaalkeedu waa okay codku waa okay sida loo duubay habka loo duubay aad buu u fiican yahay laakiin meelaha ugu badan oo dhaliilaha laga keenay oo ma ani ahaan xitaa markii la ii sheegay oo aan daawaday meesha wax iga soo baxeen waxay ahayd eray run ahaantii aan aad ula yaabay si kasto aan macna ma aan falcelin ugu sameeyana waa garan waay wax allaali iyo wax macna ah uu ku fadhiyo idinkana waa ila soo qiimeyn doontiin kadibna dib ayaan iskugu soo laaban doonaa bal daawasho wacan dimanka erida horte daftadan oran lahaa dimanka erida horte sidaas soo aragteen waxay tiri geerida horteed hayga dhiman kulli maan maqal xitaa hadii aan waa arkay ku dhaw ama ma arkin hadii aan ku dhaw waxay noqonaysaa wax run ahaantii aad u dhow laakiin waxaan ka wada maan
maqal xitaa kuma maqlin nolosheeda geerida horteed hayga dhiman anigu dhimashadan la dhimanay geerida horteed iyo asbaabaha iyo run ahaantii waxa ay ula jeeday abwaankii sameeyay waxa uu ula jeeday run ahaantii waa garan waayay haddii aad adiga igaga roon tahayna waad nala wadaagi doontaan ma malaynaysaa fanaaniinta waxaan hadda maqalnaa inta badan fanaaniin badan ayaa fanka isaga baxay fanaaniinta fanka isaga baxayo waxay doonaan bahan noqdaan run ahaantii inta badan waxay og yihiin in oo maanta fanka heerkaasi oo marayo heerka oo maanta marayo ama waxaan dhihi karnaa ma jiro wax abwaan ah oo heesa macaan laga qaato heesii mar haddii ay isa soo xireen waxay noqonaysaa in fanaanka sumcadiisa uu ku lumiyo waxyaabo aanan isaga u qalmin fanaaniintu way kala waaweyn yihiin wayna kala aragtiyo duwan yihiin marka taas ayaa waxay keentay in ay fanaaniinta markii ay arkeen heerka maanta uu marayo abwaaniinta ama heerkay marayaan abwaaniinta in ay fanka oo dhan isaga baxaan maadaama aysan samayn kareynin ama aysan qaadi kareynin heesa aanan wax macno iyo murti ah midna aanan ku fadhin oo laga yaabo in shakhsiyadda qofka ay dhaawacdo markii ay arkeen ay waxay jeclaysteen in ay fanka isaga baxaan way jirtaa in fanaaniinta ka mid ah oo ilaahay uu ka soo hadiyay amaba iska jeclaystay ilaahay dartii inay fanaaniinta uga baxaan laakiin boqolkiiba boqol xitaa haddii aniga aan idinla hadlayo oo cabdiwahaab aan ka mid ahaan lahaa fanaaniinta heerkan maanta uu fanka uu marayo markii aan u eego waxa xaqiiq ahaan lahayd in isaga bixi lahaa fanka run ahaantii aniga keliya kuma dhahayo waa heestaan intaan yarista laakiin hees walba inta ugu badan haddii aad maanta si fiican aad u daawato music mooyaane wax macno ah oo maanta uu kuu soo kordhayo ma lahan walow meelaha qaar ba aad ku arkaysid heesaha qaar in ay laysku caynayo amaba fanaaniinta qaar ay afalagaadooyin isugu geysanayaan run ahaantii soomaalidana waa dad mutarjimiin ah oo inta badan jecel in ay wax ka soo dhex saaraan fanka maanta wuxuu marayaa meel aad iyo aad u xun waxayna fanaaniintii waaweyneed dareemeen in uusan maanta fanka ahayn xilligii ugu munaasabsanaa amaba xilligii lagu jiri karayay waxaa jirtay in ay marka hore meelo badan laga fiiri jiray heesaha amaba in abwaanka heesta laga qaadanayo laakiin maanta qof intaasoo waqti iyo juhdi gelinayo malaan xaqiiq ayaa idiin sheegaya qof walba wuxuu eeganayaa oo kaliya laxam ii saaro kuleeyahay kaliya laxamka iga macaanay waana sababta aad u laadahay maantadan aad taagan tahay hees macno iyo murti ku fadhido oo aad daawatid amaba aad dhageysatid markii laga reebay inaad ku dhageysatid muusiga kaasuna waa fikirkayga ay ma ahan fikirka qof kaleete waxaana jeclaystay in aan intaan turxaan bixin qofkii yaqaan amaba wax ka fahmi kara amaba wax ka fahmay ama macnaha guud sida loola jeeda fahmay commentiga ayaad nagula wadaagi doontaa haddii aad sideedoo kale tahayna waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkan aad sii share garaysaan oo like garaysaan oo gaaro qofkii sameeyay waxaa samaysay ayaan ayaa samaysay oo maleynaya qof dumar inay samaysay jeclahay marka waxaan rajaynayaa inay iyada xitaa nooga soo jawaabi doonto ama ay noo sheegi doonto ama aan mar aan ogaan doono sida ay tahay ama qofkiina dhaaman oo noo sheegi doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin Jimca Kariim ayaa mar labaad idin leeyahay inta aan muuqaalkan mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanilaahi iyo is arag dambe oo xiisa badan